laptop baa lagu soo arkayaa qofkii oo ka dhacayo fortemba oo toonkii ka dhacaya ayaa la hagaajinaya kadibna isagii maslaxa lagu soo saaraa de waa isku mid baaban nahayba yaa lagu yiraahdaa Cabdileeta baa lagu leeyahay iboy qaabkaagan iyo quruxda rabbi ku dhashiyo waliba qalbigaaga furan ayaa qof waliba dareen qushucle ku beero Cabdileeta waxaan kaloo ku weydiinaynaa ma jira markii laga soo tago inaad tahay heesa xirfad kale ku dheer fankaaga dadkii kalgacaylku waa kan sadaashu weyru mawday bishii malabkaasi raatay waxa loo ciyaartumi dayaxiyo cadceedo nurka isku celiyo ubax caynbacayniyo meher lagu casuume fanaanad hadda caan ah oo fanka ku jirta oo gabadh ah oo ardaydayda ka mid ah ayaa qisadii ugu xumeed baa ayaa soo martaa kulay waani kulay ayaa heeskan iyadoo duubatay ayaan anigu waan okay fankaaga xagee ka bilowday Cabdileeta heesta u horeysa aa qaaday markii fanka aa soo gashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالي هلك إذا الأهانتين بو وسلامتين هلكاس جوكتين ما أنت وحا برامج كينا وياها فنكا أسبوعي هالمر أتكدا وتام بن عيسى برودكشن يوتيوب كينا أما إسلا بيج كينا بن عيسى برودكشن وحا ما أنت برامج كورتين ولا القالية فنان قرن عبد محمد حسن عبد هيلو سودو وانكولايا آذن محمد عيسى ولو هاي وأنا كنت فرح سنة هاي inaan ka soo muuqdo bin Ciise production dhammaan asxaabtana waxaan leeyahay halla kala kiciyo si fanaaniin badan oo caan ah oo barna ay waabari ku jiraan barna magac ay leeyihiin sida Maxamed Xuseen Lafoole yaad ka soo muuqan doona halkan marka halla kala kiciyo Cabdileeta waxaan rabaa maanta 6 su'aalood inaan ku weydiiyo su'aal su'aash kale ee ka culus tahay Cabdileeta horta xagee ku dhalatay markuu horeyso ani waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa Somaliland ma sha Allah xagaas ku dhashay waxbarashadaadii kadib anoo yar ayaa waxaan uga gudbay Djibouti marka waxbarashadiisa horta Ethiopia ka bilaabay waxbarashadeeda ma sha Allah Ethiopia magaalo la yiraahdo Qabri Bayax aad baro salaamay Qabri Bayax halkan ka salaamaysa وين وسلامنا أني فنانك كدب محل هذا جيبوتي أنا ير جيبوتي بقى وحكو برتي أوكي ما شاء الله عبدالله وحنكو يدينا سؤال شيء عبدالله فن كان هدراع ميا أو دد أهلك كده حشاجره مسا وواحد الروح هذا كهش والله هرت فنكو وارنتاي وحوليه هدراع يقفين الروحيا وجرو أنا قال بضبط اسكو درصدي هدراع نوانه أبتقي مدد شخص إسماعيل أو كوميديانا سومالان أد لوجي قانية سوماليا بقى مدد شخص إسماعيل أيا فنك كجرا هدراع نويه أنا ير أيان جعله فنك إن شاء الله أوكي إن فنك حاجة قبل عبدالله فنك وحنا قبل لعبي وطن كجيبوتي عاصمة جيبوتي ما شاء الله حافظ كارتسيس وسلام يا دمار كارتسيس اوكي ان هست هوريس قاد markii fanka soo gashay gaaski goray waxaan qaaday iboy qaabkaagan iyo quruxda rabbi ku dhashiyo waliba qalbigaaga furan ayaa qof waliba dareen qushucle ku beero قدرين واد مدنته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان هيسكاس يكون سمي ان ميراها يكون سمي هيسكاسي waxa erayada sameeyay Allah u naxariiste Umar Macallin Umar Kool ayaa ii sameeyay laxanka waxa sameeyay saaxiibkay macallinkayga Khaliif Cabdilaahi اوكي Cabdileeta miisigana waxa tumay Saciid Qumana Geelle Saciid Suuri ما شاء الله ان waxaan kale ku su'aalay Cabdileeta yaa kugu dhiirigeliyay fanka inaad soo birto oo ka mid noqoto kooxaha qarankana ka mid noqoto والله ده قف كلا أنشاقي كرا ويرياه روضة ظاهر إسماعيل روضة ماش معلمة ضيدة هل كان كسلامة يا
way xanuunsanaysay Egypt ay joogtaa Masar laakiin hadda way fiican tahay aad ban roodo halkaan ka salaaminaa si wada maanta halkaan waa dumaashiday waa ilmaha ay heeso waxa dhalay walaalkeen ma sha Allah aad bar salaamna iyadiyo salaamullahi kulena roodo Cabdi Helo waxaan kulan ku weydiinaynaa ma jira markii laga soo tago inaad tahay heesa xirfad kale ku dheer fankaaga wallahi horta su'aal fiican weeyaan horta fanka aniga waxaan bilaabay 2000 iyo adu shantii baan jeclaaday 2006 baa heeskaygu ugu horreeyay soo baxay waa heeskan hibo hibo ma sha Allah markaan 3 sano ku jiray music ayaan isku dayay organ-kan waa dadku way yaqaaneen organ si fiican marka hadda laba firaaq u kale organ badna waa logic wax la yiraahdo la kakabo oo anigu de waa la kakaba kaas anigu waxa weeyaan in kastoona dhaliileen musician ma oran karo sax badhna waxa weeyaan waa live music oo tumitaanka musiga moogtahay anigu markaa kaas ayaan ilaa hadda waxaan isleeyahay in igu filan xafladan keligay waa tuman karaa live waa ku tuman karaa Cabdiheela waxay dhahaa dadka Cabdiheela waa la xamiista weyn ma jira heesaa la xamiista والله horta la xamista aadan waa la iga weeyahay laakiin kullay aniga oo yar oo fankana maxay haatay la iga weeyahay ayaan heesa badan la xameeyay okay hadda ma jira fanaaniin oo caan ah oo sameeyay 1 2 3 iyo 4 oo heesadii la xameeyay oo qarx oo magaalada galay ma jira fanaaniinta waxa kamid ah deeqa Axmed Geel فنان رجبوت iyada iyo kin jacayl wiil leeyahay ayaan hees wada la xameeyay wax ma naga xasuusin kartaa imraas mas'ala waxa kale oo jira tan ku dhameystiray ubax daahir ubax fahmo waxa kale oo kamid ah caashakiin digadeena muqdisho wiilkaaga yar hooyadii caashakiin inta ka salaamayna adiga ma sha Allah kulli fanka reer muqdisho aad waxay ku xasuusan karaan caashakiin wariya xaq dhowr yeeska badaydu iib maaha caashakiin halkan ka salaamayna waxa kale kamid ah shaadiye sharaf dimaashaday ma sha Allah إذا هيس كون عمر عبد الله سدكي كالجعيلكو وكان سدا شوير مودي بشي ملب كاسراتي وسيدي أنفلاي سندكو سندكي وي أدبان سلامة الدنيا شدة شرف بدن أدبان سلامة ما شاء الله وحنك لو قوة ديننا عبد الله وياهاجي فانكا ما حاجة عشان أنا قصور قبل جبيس سؤال في عن أدبن جلست سؤال شهر أرتا فنك ما دام إسلية هي إلا صدق حرفضات صدق حرفضات يعني إسكودي وهيسا ومسيشن يوم حنكرا ملحن هل أبور كانت شيئا ما لكن لبضوه سوى سبي الله يحفظه ما شاء الله وحي عاد اسكت وحي عاد كل عاد كاميرا داليسو وما دور دول قف وفانا يا بكورانيا لكن وحي عاد اسكت هل ام بلبا كسميسو مغعي كل وضع وين شيكتو ويان واياهيga fanad waxaan ka dabacsanay aadanow horta noloshu inay fan ku koobnaato ma qofku family weeyaan ilmaal ayaa waalidaleeyahay abaleeyahay waayahiga fanad horta fanka ani hadda waxaan ku jiraa ilaa muddo 20 sano ku dhow 18 sano 17 sano fanka marka hadda muddan ka yar maqnaan ka fadhiyay horta isxasuusin baan sameeynaya isxasuusin comeback sameeyo kadib waa ka fadhiisanayaa ganacsi baan wareegaya walaalahay oo aan aad u jeclahay iyo waalidkayba ayaan rabaa talo aan la wadaagay inaan talada ku dhaqaaqo insha Allah ganacsi baan wareegi doonaa diyaar Cabdiheela markii taala ay gudbo ma jira fanaan ku dayto fanaaniinta kamid ah masaysiisa jecleed dhigto dhigi jirto dhigaysan jirto asla fanaankaas heeskiisa dareenkaaga Ahmed Ali Ciyaal ma sha Allah adiga galgalkiyo kooshi aan wali dhalin garab weynta gubta galoftan irmaanayn gorofko culayste waadiga niyada gudan rabbina ka gabaanaday ubaabina halkaas ku joogsay ma sha Allah waxa kale ku weydiina Cabdiheela hadda in muddo ku jirta fanka saano sheegtay 20 sano waxaan rabnaa inaan ka weydiino fankii hore iyo kan dambe iyo fanka hadda maanta jiro maxaa farqi u dhexeeya islaada maxaa fankii hore iska bedelay aadan su'aashaada waxaan u fahmay fankii hore iyo fankan dambe maxaa difference u dhexeeya aadan oo horta fankii hore shuruuc buu lahaa shuruuc baa lagu soo gali jiray
qofku hirgalay ayuu ka soo bilaabi jiray guddi baa fiirin jiray waxa laga yaabaa qof maanta dadka hadda jooga ka ugu fiican u dhigma in la oranayay waa dhacday Soomaad gar waayo dad oo la soo xulay baa soo baxay imtixaan soo maray wuxuu lahaa fan kooxeed buu ahaayo riwaayadaha la dhigi jiray wuxuu ahaa jidkii fan lahaabo ayuu lahaa inkastoo maanta kooxihii ay jiraan oo shaqeeyaan kooxo badan waa bari maxaan ku raahdaa heegan horseed asluubta deegaan kooxo badan inkastoo shaqeeyaan ma sha Allah laakiin difference baa u dhaxeeya waa fankii hore iyo fanka hadda kan dambe horta dhalinyaro dadaashay weeyaan aad dadka iyagoon dawlad rasmiina aan haysan dawladnimo haddaan helay aanu dawladeena dhaliilayn iyagoon dawlad rasmi haysan iyagoon garab istaag haysan orod iyo dadaal la tashi la'aan baa jirtay wixii la doonaa la iska qayriyay laakiin dad dadaalay baan oran karayaa laakiin wax la isgarab dhigi karayo ma aha aniga waqtigan aadan soo galayay oo 2005 ayaa ugu dambeysaan soo oran karayaa fankii macaankiisi mixer ayaa lagu heysay mixer hadda laakiin waxa lagu soo aruuray hal laptop baa lagu soo arkayaa qofkii oo ka dhacayo fortemba oo toonkii ka dhacaya ayaa la hagaajinaya kadibna isagii maslaxa lagu soo saaray waa isku mid baaban nahayba yaa lagu yiraahdaa Cabdileeta baa lagu leeyahay ninkii live u heysay ninkii kale waa same base waxba isma dhaamaan ileen dadweynihii wax duuban la soo hor istaagaya waa loo boodboodaya marka Cabdileenihi oo legendka ahaa hadii live music instrument kumbar loo tumaay waxa soo istaagay mid luuq yar loogu soo duuba horta qisay qabsatay inta hadda xasuustay qisadii iigu la yaab badneed fan ahaan muqdisho igu qabsatay maxay qisaastul Cabdeel xaflad aroos baan joogay marka hees waxa jira anigu aan qaaday oo caan ah Soomaali oo dhan taqaano oo aroos waxa loo ciyaartumi dayaxiyo cadceedo nurka isku celiyo ubax cayn bacayniyo meher lagu casuume heeskaas waa taqaanin bulsho badan ay qaaday heeskaas waa naqana heeskaas ayaa ku samay Cabdeel heeskaasi isla abwaankayga Umar Macallin Umar Kool Allah u naxariisto waxay ahayd 2007 hadda dad badan la kees soo qaaday heeska original ahaan ninka loo sameeyay abwaanka fanaanka loo sameeyay waa adiga aniga weeyaan arooskii loo sameeyay waliba sheega islaan eedaday oo tamad la yiraahdo oo reer Jabuuti gabadheeda ayaan u qaaday waxba yeena dadku heeska sheegan original kinka iska lahaa waa isla fadhiya laxankana waxa leh Umar Aadan Dugsiya legend ma sha Allah fanaanad hadda caan ah oo fanka ku jirta oo gabadh ah oo ardaydayda kamid ah safiican ayaa qisadii ugu xumeed ayaa soo martaa kulay waani kulay ayaa heeskan iyadoo duubatay ayaan anigu waan qaaday aroosadii baan ku soo galiyay iyadana waa sheedo iga daba qaaday anigina waan joogaaba wallahi sheekadii lagu la yaab badneed baa kugu dul qaday caadi noqotay marka qofkaasina uu isfahmaya kulay magaciisa muqsoo ma xuseyno laakiin waxa la asluubta fak waxay ku xidhan tahay احترام وحيابا غير laga leedo hadii kale waanu sheegi doonaa magaca okay Cabdeel umada Soomaaliyeed ku daawanaysa fanaaniinta ku daawanaya jiilka maanta soo koraay oo kugu dayanaa maxaa leedahay Cabdeel maxaa ku dardaarminaysa hal iyo labo horta waxaan leeyahay wixii dhalinyaro walaalaha iyo waxbarashadiina wata anigu fanka ma dhaliilayo laakiin Soomaali maanta waxay u baahan tahay aqoon-yahan nadiifa oo calool fayow oo qalbi saafiya oo dhismaha wadanka wax wanaagsan ka qabta dhalinta fanka ku soo socota waxaan leeyahay walaalayo waxbarashadiina wata waxbarashadiina dhamaysta hobbigiina faneedna waa ku darsan kartiin laakiin waxbarashadiina ka madha dhaliya waalid iyo waxa idin ku soo tabcay maxaan ku raahdaa iyo ehele dad noloshooda ku tabcan noqoda سوما ثامن أنا قبوا أنا قاعد ندير شيء إذا فن كمر دليل لكن وقت الدوا كدي قرقن دونا إن شاء الله Cabdeel waa kaaga mahad celinaa waqtiga quruxda badan iyo fursada aan siisay soo dhawaad bilowday fanka waan ku dhiirigelinayaa ma sha Allah waxa tay laftiga aadan fanaan baa tobalada qaranka waa bariya ka tirtay safayno ka wadaysna wariyada waa tahay aad marka waxaan leeyahay YouTube-ka hala kala kiciyo safiican Cabdeel soo dhawo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh asxaabteena sida iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta